بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan kula kulmay boqorka beesha garxajis oo aan ka wareysanay dagaalka ka cusboonaaday jiida u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland bal fikirkiisa wuxuu ka qabo boqor ku soo dhaw wadhawahay Yusuf oo ku salaamaya ummadda islaamka meel joogto salaamaya ku salaamaya salaanta islaamka ama ummadda reer Somaliland waxaan salaamay salaanta islaamka wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haddaad mowqifkayga jiidaha Somaliland iyo Puntland u dhaxeeya aad igu weydiisay horta marka horeysa waxa aan leeyahay ciidamada qaranka Somaliland hambalyo baan leeyahay boqorka beesha Garxajis hambalyo baan leeyahay way ku mahadsan guulaha ay soo hooyeen xuduudahooda sugan qarannimadeena ka mid tahay shacabka reer Somaliland iyo xukuumadda wax hambalyeynaya xukuumadda waxa leeyahay hambalyo waayo xukuumaddu waa inay xuduud lahaataa shacabka reer Somaliland waxa uu sheegayaa waa inay yar iyo weyn sidii lagu yaqaanay ay taageero mug iyo miisaan la u bixiyaan ciidamadooda qaranka Somaliland ee kala duwan dhinac walba leh military ee police leh waa inay si mugle iyo miisaan la ugu kacaan meesha ku arkaba ay calanka iyo kala hortagaan haddii wax kala waa in reer Somaliland waxaan u sheegayaa Puntland waxaan ka arkay shaashadaha wax ka aad uga buuxay asaga oo kii dowladdeegaanka xukuumadda oo ka hadlayo uu leeyahay Somaliland dhibaatada ku dhufano asagoo isku halaynaya Soomaaliya waxaan u sheegayaa Somaliland waxa weeye awoodii ugu weyneyd ee Soomaaliya ka jirtay ee quwadda Afrika ahayd tii burburtay Somaliland bay waxaan ku sheegayaa quwaddii oo laba baa maanta meeshii taala waxaan ku leeyahay halka aad joogto ku eeko xuduud baa adduunyadu inoo kala samaysay xuduud baynu kala dhiganay inaad maalin walba ka soo gudubtay yar iyo weyn kaa yeelmayno waxaa jirtay gabi aan martiyo ahaa mar ay saa u soo hadlay oo wadigii ogaada wixii ku dhacay Soomaaliya markaa waxaa jirtay mar uu madaxweyne baan garow madaxweynaha uu haystay hadii xukuumayo Xasan Sheekh buu mar Somaliland ku soo xadgudbay uu gacan baan ku qabanay waxaan ka tiriyay afar kelmadood hawl yari kumaan helin iyo heesolwaaleed halashada dalkayga halkan baan u soo maray qaar hore ku hermay kuwa soo hadlay faqashmada ku herantay kuwa soo hadlayna kuwa nimanka hadlayo kuwa soo qaar hore ku hermay kuwa soo hadlayo hubsama kulay aniga fariinta aad u diraysaa waa maxay mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay jiro joog bartaa ka hay xuduudahaaga cidna ku xadgudbin xuduudaha la sugato waad ku mahadsan tahay waan ku hambalyeynaya mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo baan kula madaxweyne jiro joog waad mahadsan tahay waxaan sidoo kale isagana halkan aanu ku kulanay ugaaska beesha Ibrahim Saxaaq Sambuur ugaas ku soo dhawow adiguna maxaad fikirka aad ka qabtaa waa maxay dagaalka bartaa ka cusboonaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بان السلام يا مركورة دمان شعب كرير Somaliland iyo ciidanka Somaliland meel kasto ay joogaan ba salaanta kadib ilaahay baa marka hore mahadle ama Puntland ha noqoto ama Somaliland ha noqoto waxaan leeyahay ama Puntland ha noqoto ama ha noqoto Soomaaliya